la iyo hadda la ogeyn halka ay ku sugan yihiin geeri iyo nolol. Tuuladayada iyo qaybo kale oo ka tirsan gobolka Gedo waxa maalmahan ka jiray dibadbaxyo ay dhigayeen dadka careysan sida ay sheegeen dhibaatooyinka kaga imaanaya ciidamada Kenya. Haddaba Dhaqane Abayle Cilmi oo ah ehelada mid kamida dadka dhibaatada loo geystay ayaa u waramay wariye Cabdishakuur Casoowe. walaal dib baan gaaray dib farxo baan gaaray dawladda Kenya ciidamada lagu sameeyeen dibkaas aan ka caawinaynaa haddana u fadhinaa qaar waa meydkooda waa xawaaranay qaarna waa walaalaha ilaa hadda meel ay ku nool yihiin. dadka dhintay waa imisa hadda dibka u dambeeyay oo taariikh 24 dhacay waxaa dhintay wiil aan adeer u ahay aabihii iyo laba wiil oo kalena waa lala tagay ilaa haddana meel ay ku nool yihiin meel ay ku dhaqayeen midna ma hayno. marka wiilka dhintay iyo ragga kale ee la kaxeystay maxay ahaayeen? dad shacab oo tuulo iyadoo la yiraahdo deganay ahayn ma garad 12 subax maraysa ciidamo ka oo xuduudka ka imaada soo weeraray wiilkan iyo labada wiil oo kale bal darso jiifeen ilaa ku soo istaageen ninka soo baxay ilmo ku soo baxay oo banaanka ku soo baxay baxbada ama xal ursa ma garad labada kalena meesha ku dhaaqftay ku xireen ayagoo ku kala xiray kana dilaya yaa hooy imaadeen ninkii walaalkay ahaa wiilka dhintay dhalay asagana ay ku dareen ma garad saddex ruux ilaa hadda meel ay ku sugan jaan cirma hayno wiilka dhintayna way qaadeen meel xuduud 5 kilomitir markii gudaha u guliyeen meydkiisa ay tuureen meel gudaha u guliyeen ciid ay ku gudiyeen saddex kale wiil waa raadinay meeliyan ka soo helay meydka isaga ahaa. waan gartay marka idinka waxaad sheegaysaan dadkan in shacab ay yihiin laakiin maxaa ku xaqiijin kartaan in dadkan ay shacab ahaayeen? dadkan dad wiligood qori qaaday ma aha xuduud ay degan yihiin waa dad rayid dawladda Kenya 2011 markay wadanka soo gashay iyo saacada inta ka dhaxayso 100 qof saacan way dishay ma garad aniga kula hadlayo Dhaqane Abayle Cilmi ah 2017 bisagaalaad taariikh wiil aan dhalay oo sinjir ay buusaar ku dishay oo dhintay ayagoo cashay ilmihii banaanka fadhiyay xabada ciidanka soo rideen madaxa u dhacday shanjir oo ahaa meesha ku dhintay saacada hadda aan ku sheegay hadda inta ka xasuuq u socdaa shacabka meesha u dambeeyay marayaan mudaharaadka dhibka meesha ugu dambeeyay marayaan dadwaa waa dhamaaday. Dhaqane marka dadkan bartilmaameedsada ciidamada Kenya ee halkaas ku sugan ee weerarada ka fuliya ma wax xiriir ah ayaad la leedihiin? anagu hadda qolay Kenya iyo qolada kale hadda oo bartilmaameedka hadda sheegaysaba dad rayd waa isanahay wax hadda xiriir ama communication laga dhaxeeyo male ee wadankiina way wada joogaan oo hadda mariyeen kumali laakiin wax anaga naga dhaxeeyo oo hadda xiriir ma jiraan. marka dhibaatadan aad sheegtay inay soo socotay ilaa markii ay ciidamada Kenya Soomaaliya soo galeen ma jirtaa cid aad uga dacwooteen idinku ma isxilqaanteen odayaal baad leedihiin deegaan baad degantihiin ma baxdeen oo cid ma u dacwooteen? in badan oo sameeynay oo Jubaland kala hadalnay markii wiilkan dhimanayay iyo markii wiil adeer waxa uu ku dhintay yar kale ku dhinteen geerilay email u dhaxayso faafadhuun ka faro mareen ilaa saacada hadda hadlayno waan ku sheegayna waa qoys kaliya laakiin deegaanka dadka degay waa sidaan ku sheegay way ka badan yihiin dadka ku dhamaanayo oo Kenya sahayatay 300 way ka badan yihiin ma garad. sideed ku diiwaan gelisaan dadka dhibka loo geysto? waxaad tiri 300 qof baa dhimatay xisaabtaas sidee ku haysaan? diiwaangelin ma hayo laakiin hadda inta aan garanayo oo hadda oo ani aqoon u leeyahay waa gaarayaan konton ka badan inta aan aqoon u leeyahay. kaasi wuxuu ahaa Dhaqane Abayle Cilmi oo u waramay wariye Cabdishakuur Casoowe. maalmahan waxaa taagnaa khilaaf ku saabsan dad la sheegay in Kenya ay ku dishay gudaha Soomaaliya arrinkani waxay dhalisay in xasarad ay ka dhacdo xadka labada magaalo ee Mandera iyo Beled Caawo waxaan la xiriirnay gudoomiyaha dawladda dhexe u qaabilsan Mandera oo sheegay inuusan ka hadlaynin eedahaasi loo soo jeediyay Kenya isla markaana dawladda Kenya aysan wax war ah oo amuurtaasi ku saabsan ilaa ay hadda haynin balse dhinaca kale waxa amuurtan walaac ka muujiyay ku-xigeenka maamulka Mandera Maxamed Axmed Araay oo qadka telefoonka iigu waramay isagoo Mandera jooga waxaan markii hore weydiiyay bal waxa uu kala socdo dhibka gada ka dhacay. walaal waxa gada ka dhacay waxaan ka socon waxa waay in haygo dalka dib yar astax yeela dawladda Kenya iyo Soomaaliya taasoo Soomaaliya ay sheeganayso in dad laga laay Kenya ay weli warbixin kaamil rasmi ay bixinin marka taasoo sababtay in aygo Mandera oo qalab ka dhacay dib ka dhacay labada wada dhaxdood. inkastoo adiga xilkaaga uu yahay heer ismaamulka Mandera kaliya ah dawladda dhexe ee Kenya ma kala hadasheen dadkan la sheegayo in deegaanka Ceelwaq lagu laayay?
walaal dowladda Kenya sida badan horta hawshanayto waa hawl oo hoos imaada hawsha amniga walaal waxay hoos imaadaa dowladda dhexe ma hoos imaada dowladda county saas awgeed maadaama ay tahay hawl dowladda dhexe waxaan rajaynaynay in dowladda Kenya iyo dowladda Soomaaliya heer dowladeed inay labada wadan ay wada hadlaan oo wixii dhibaatooyin oo jira ay ka wada hadlaan si loo xalliyo anaga intii aan ahay dadka Mandera khaasatan dadka Mandera town waxaa saameyn badan ugu lahaanaya khilaafka labada wadan dhexdooda ka dhaca hadda jeer sababtoo ah waxay imaadaysa labada wadan inay xuduudkii isu gudbitaankiisa dadkaada waxaa naga dhaxeeya waxaa labada qaybood beecshara business Mandera sidaas ogtahay raashinka laga cuno meeshaas ay tahay boqolkiiba boqol waxaa iska yimaada Soomaaliya marka waxay saameyn badan ku lahaanaysaa marka dadkii ummadii nolosheedii iyo mustaqbalkeedii ayay dhibaato fara badan ku lahaanaysaa hawsha kaloo jirto waxaa waaye labada qaybood waxa degan waa dad Soomaaliyeed dhinaca Mandera iyo dhinaca Kenya sidaas ogtahayna waxaa naga dhaxeeya dhaqan fara badan naga dhaxeeya labada qayboodba oo jiiraanimo walaalnimo islaamnimo waxa intaas kulaa naga dhaxaysa marka ma doonayna in labada wadan dhexdooda khilaaf iska dhaca waxaan ugu baaqaynaa madaxweynayaal Kenya iyo Soomaaliya labadaba in hawshan si uu degdeg badan ay soo dhameeyaan way ka fadhiistaan go'aan rasmi ay ka gaaraan hadii ay wax jiraan wixii sidii lagu xalin lahay ay dadaalkeeda ay boojiyaan aan u baahnahay laakiin maadaama aad sheegayso oo leedahay beled xawa kama maarano raashin baa nooga yimaada labada madaxweynena ha ka wada hadlaan cidda wax dilaysa waa Kenya ma ahan Soomaaliya cidda la leeyahay xuduudii bay ka soo gudubtay dad bay laysay waliba reemiya ah waa Kenya idinkana Kenya aad ka tirsantihiin marka intaad u tagtaan dawladda dhexe maad ku tiraahdaan war dhibkan ha laga daayo dadka dariska nala ah hawsha waxa dhacay aniga sida rasmiga kama waxaan ka sheegi karaa ma lahan Kenya adigana wax bay sheeganaysaa Soomaaliya ayadana wax bay sheeganaysaa marka habka ugu fiican waxa waaye inay labada wadan ay fadhiistaan oo wixii jira ay soo waramaan anaga hadda ma sheegi karna inta ay ahayd kana ahayd waxaan ka dhigi karnaa ma lahan absolutely marka wixii la taabanaya waxa waaye dhibaatooyinka ka imaan kara arrintaasi to awgeed marka hadda jeer waxaan ugu baaqaynaa labada wadan inay fadhiistaan wax dib oo jira ay ka wada hadlaan Kenya wax bay sheeganaysaa ayagana wax bay sheeganayaan wixii la sheeganayo laga wada hadlo xagga okay marka laga soo tago dawladdii dhexe Nairobi fadhiday idinka reer Mandera ahaan waxa darisina idin la ah beled xawo sidaad qiraysaba maamulkii beled xawo ma u tagteen hataa ugu yaraan ma u sheegteen tacsi iyo inaad ka xuntihiin waxa dhacay ceel wax ka dhacay kulay waxaan ugu baaqnay dawladda Kenya iyo dawladda sayto inay labada maamul ay soo imaadaan oo wixii hadal ay ka wada hadlaan waxaan filayaa dhaarweyd waa soo imaadeen waana wada hadleen wixii in si nidaam bal wax la rajaynaa insha Allah kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku xigeenka ismaamulka Mandera Maxamed Axmed Cara